qolna anaga wada seexana iyo dumarka ninkuna qol buu leeyahay markaa kolba tii habeenkaa doonaysa ayaan waan wada shawirna ama waan wada sheekaysanaa anaa u baahan baan odhanayaa tusaale ahaan waan la seexanaya labadii kalena meel kale seexanayaan qol bay wada seexan maxaa tiri warbaalka fuqa dibigaa layna adeer caawa muraayada waan iska jibinaya iga qabto war jimadiga ala warakaatu kulanti waana wanaagsan daawadayaal markasta dunida daafiyada ka joogta waa markale kaliya cusub halkaad iga daawanaysaa waa barteena hodan fashion ee kulan youtube-ka walaashan hodan ay la soo dhawaada dhamaantiin markii hore aadna soo booqatay haday tafadlan waxaan ka codsanaa channelkan subscribe saartid kambalelkana furtid si aad nooga mid noqotid subscribe-ta ku sii kole runtii waxa la caadi kuma taagna waxaan ka codsanayaa dhiirigelin bay noo tahay inaad like-tana nagu dhiirigelisid aad baad ugu mahadsantahay clipkana aad dhamaystiratid haddii aad waqti u haysid aad baad ugu mahadsantahay intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa la yidhi ninkii jira wuxuu yidhi warkii hore war soo dhaaf waxaa jira sheeko waxaa soo korodhay awal hore waxaynu wada ogeyn afar xaasle taakeeye nin la yidhaahdo waxaa soo baxay nin kale oo la yidhaahdo xaabsade sheekada maxaad ka taqaanaa waxaa lagu wada qabaa hal qol 3 dumara runtii walaahi xaqiiqatan wax riyaliya inay uma malaynaa sheekadani inay sheekadani beentay baan malaynaa because qof damiirkiisu joogo oo damiirkiisu nool yahay oo dadnimadiisu nooshay oo caqligiisu nool yahay oo fikirkiisu nool yahay uma malaynaya inuu hal meel lagu wada qabi karo ma sheegi karo qof xanuunsanaya ama maskaxiyan aan caafimaad qabin laakiin qof caafimaad qaba si kasto diinu leeyahay ma dhacayso hal qol ayaa nagula wada qabaa qolna anaga wada seexana iyo dumarka ninkuna qol buu leeyahay markaa kolba tii habeenkaa doonaysa ayaan waan wada shawirna ama waan wada sheekaysanaa anaa u baahan baan odhanayaa tusaale ahaan waan la seexanaya labadii kalena meel kale seexanayaan qol bay wada seexanayaan really wax noo keenaniyo wax really wax been ama ku astaysan ama aan oran karo dad qof xanuunsanay ama dad xanuunsanaya haddii xataa aan xanuunsanahaynina waxyaabo kale ay jiraan inaan nagu ogaan karin labada waa mid inay xanuunsanayaan iyo inay wax kale jiraan bal clipka intaanan waxaan ku wuli idin si fasirin waa kuna iyagoo isku kin fasiraya ee daawasho haboon waxaan arki doonaa nolosha ku nool yihiin qoyskan sere fiicantiin maanta ninkaan martidina ma fiicantii sama sere loo soo dhaweyna maasha allah mumtaaz caasho iyo sumayo waa 3 xaas ee guriga qura kula nool saygooda xasan cabdirashiid oo loo garan og yahay malabsade nolosha ka dhaxaysa marwooyinka halkan wada degan waa mid ku dhisan iscaawin iyo isku faraxsanaan qofba qofka kale ayuu ku garabsiyaa qabashada shaqada guriga ee maalinlaha ah xasan waxa uu iga warramay sida uu kala hor guursaday xaasaskiisa iyo qaabkii uu ugu qanciyey in 3diisa xaas qol kaliya wada degaan السلام عليكم مركو وادكونا كسو دبينايا maxaa la yiraahdaa maanta aan ku barayaa walaalkay adiga bulshada daawanaysa marwooyinkeena maadaama aan soo booqateen gabadheeda ugu horeysa weyneed waatana waxaa la yiraahdaa Caasha Ibn Faarax waa xaaskooda ma sha Allah gabadhaas ku xigta waa marwadeedii labaad Mumtaaz Maxamuud Cilmi Allah waa xaaskii labaad gabadhii saddexaad guriga dambeystii waa taraha ayadina waxaa la yiraahdaa guur dambays bay ku tahay micnaa adaa dhalay wax hadalku inuu dhaaf ku dareemaysaa wuxuu ku leeyahay guur dambaystii gurigu waa tan guur dambays waxaynu naqaanaa ama aynu u wada naqaanaa dadkeena dhammaanteen saan u wada malaynayo ilmaha ugu yar guriga wiil ama gabadh ku doona ha ahaado bal halkaa iyada hafsay bad ku jirtaa ku socohay maxaa la sameeyaa Axmed Sheekh marka barasho wanaagsan brother ma sha Allah niyo waxa waaye maxaa la yiraahdaa waxaan deganahay gurigeena waa weyn yahay waxaan deganahay 2 qol kamid ah waxaan deganahay aniga gurigeygu weyn yahay haddana waxaan deganahay 2 qol halkay iska galaan 2 qol ayaan deganahay gurigeygu weyn yahay bal labada isqabadsi adigu
gurigaa wuu weyn yahay waana 2 qol qol ayadaa seexda qolna habeenka taa doonaysid ayaa timaada oo kula seexadsan hal sariir ayaa ka wada dhaxaysa 3 dumar caqligeena saliimkii ma qaadanaya waxaas haddii xataa ay jirtana waa qof xanuunsanaya maaha qof caafimaad qaba anigu sidaan aaminsanahay waa qof xanuunsanaysa ama la baabayo baaban labadaa waa mid ku soco waxaa qolkayga jiifto iyo nidaamkayga fadhiyo waa qolka kaleetan waxaa degan gabdhaha marka waxaa waa waqtigooda iyo jawigooda waa saxan yahay midba mid kamid habeenkii waxaa waa faatixada iyo aan ilaahay u dhawaanin maaragtay ayagaa soo gartaan allahu akbar waxa uu yidhi kolba tii habeenkaa doonaysa ayagaa isa soo afkarta allahu akbar lagu raaciyo ta habeenkaa ila seexanaysa ayaga ayaa is soo doorta mid kamid a markaa taas ayaan la seexda ma ogtayna dumarku xaquuq gooniya leeyihiin mid waliba xaquuq ay leedahay aysan hayn wax ay iyagu isdoordooranayaan ama ay iyagu leeyihiin anaa caawa la seexanaya waliba gurigood ku wada qabtaa gurigu hadduu weyn yahay haa 5 qol hadduu yahay ama 6 qol oo kale xataa awlaad baa imanaysa 3 dumar ilan dhagax taagan meel maaha meelay awlaad dhalin awlaad xagee la seexinaya macnaha 3 dumara way adag tahay ciyaalkoodii iyo adigu inaad 2 qol ku wada noolaataan saad u sheegaysa waliba fadhi iyo waxa weeyaan qol iyo qol ayagu seexdaan labada isku sharaxay macnaha oo isku baraxay oo qolkayga nafiskan seexanayay iyo qolkaygii fadhiga qolna waxa weeye ciyaalka iyo dumarka xaquuq gooni leeyihiin horta reeliga markaan ka hadalno dumarku xaquuq gooni leeyihiin ama hayso soo gartaan ayagu ama hal qol ha wada seexdaan dumarku xaquuq gooni leeyihiin xaquuqdooduna maaha taas warniyo waxaa sanadan dib waxaan arkaynaa aan cumaadan soo xidhaaranaya sheekh baan malmaad reer caadis ka dhigay niga daay riwaayado kuye 3 dumar ah guri ku wada qaba wariya ilaahay garanaya walbaan ku socono waxba garan mayna inagu waana halka iskala jaan qaadeen 3 saxaas so qofkii markaas aan ka helo waa la hadlaa waa isbaranaynaa markaa isbarano aan xiriirkii u sheegto inay waxaa inaan u sheego waxaan leeyahay qof marow nin xaaslanahay gabadha gurigii joogto anigina waa ka helay infant dooqa waan jiraa infantaade marka ayagiina wallaahi maadaama ay arkeen aniga feelingkayga ama in aan waxaa aniga rabitaankayga heerka u gaarsiisan yahay iyo daacadnimadeeda markay arkeen way soo dhaweeyacaqabadaas adag kala gurmisdhigi karo aniga wax walba aniga oo jiro waxaan u sheegaa macnaha waa gabdhahayga dan ayagaa familkooda kasoo dhaadhicinayaan mise wax walba marka markaa gaftamayna ani aan dhow cidda camal jiqma kaaga dhiga miya aniga ciyaalka xaafadaas ma laane camal waxay taagan maamada camal ama odaga camal waxay dhahay qof meel cad meel ka mudo marka adiga meelaa ku caaday haddaa ku qanacsantaa wuxuu ku faraxsan yahay ama uu ka hadlaya waxay tahay wuxuu ku yidhi marka aan gabadha isbarano waxaan leeyahay meel cosmetic ama yani wax lagu iibsado qalabka dumarka isku qurxiyaan adigu waxyaabo badan baan ku iibiyaa dan marka aanu halkaa isku barano gabadha isbarano waxa aan dhahaa reerkiina adigu u tag kasoo dhaadhici inaan anigu adiga ku guursanayo anigu maba u tagaba nin landheero waxaan hay banaanteedi talow ma wax kale ayaa jira oo dadka ku akhridid ma waxaa jira wax gabadha dee gabadh qaadanaysaa ma jirto hal guri ha lagugu wada qabo adiga gabadhaba oo weliba hal sariir ha lagugu qabo naag yeelaysaa ma jirto damiirkeeda joogo war 7kan waxay dumarku taagan yihiin $30,000 nagu meheri meherkaygu waa $30,000 meherkaygu waa $50,000 adna kun yaro dhalatay baa reerkood inta ayada u dirtay iyada markay intii wixii adiga la isku ka soo dayriyo micnaha ayada adiguna halkan gabadhii
dumarku nidaam bay lahaayeen xaquuq bay lahaayeen laakiin xaquuqdii kuwan waa qaar iyagu gacmahooda iskaga saaray waayo xaquuq marka aad leedahay xaquuqdaada marka uu qofku ku ciyaarayo haddii aad u ogolaatid adiga ayaa naftaada toogtay marka heerka inay gaadhaan oo la idhaahdo caawaysa soo xusho kolba tiina doonaysaa dee idinkaa walaal isgaarsiiyaan maxaan idin qaban karaa dacawo walba halkii lagu cunay bay jiiftaa ma fahantay marka anigu kolley mana odhan karo waxani waa wax riyaliya mana odhan karo waxani waa wax beena laakiin been bay u badan tahay wax jira maaha gabadhina ma yeelayso ina hal qol lagu wada qabo 3 dumar bal hadalkayga u fiirsada hal sariirta aan kasoo kacay ina naag kale ii weydaarato naagina ma yeelayso dumar marka aynu nahay waynu ognahay naaseen teeda kale labaad dumarku dee mayaa xawayaan miyaa micnaa miyaan waxba maqlahayn habeenkaas ilaa 2 qol isku xiga waynu ognahay wixii ka dhacay qolka kale lama gala maqlaayo waliba ninkayga dee maaha yacni qof kale waa igaal waa yacni aday ku qusaysa aday taadu maaha laakiin ninkaaga oo naag kale ku qaba halkan oo qol kula jira aduu qiyaas shucuurta dareemi lahayd ama xanuunka dareemi lahayd maxaa dareemi lahayd ba runtii hadday jirto waa dumar dulman ama runtii qalbiyan u xanuunsanayaan caafimaad qabin naagna ma ogola caafimaadkeeda iyadoo ka talinaysa iyadta awlaadeeda iyo mustaqbalka awlaadeeda ka talinaysa hal 3 naagood qaba ina ay ku aaminto adugu ma noqon lahayd gabadha afraad ee weliba nolosha lagu qabo ama lagu gursan doono walaa really ma waxaan ibaan u malaynaya kaftan bayna aniga ilaa hadda ila tahay baan u haystaa because 3 dumara hal qol ku qab waxaas waali weeyaaniyo namaada raayaalhayna waalina dee wax kasta waan iska ismacaynaa laakiin kaa ismici maayo hal qol ayaan ku qabaa hal sariir ayaan ku wada qabaa 3 dumar ilaahay baa kuu baneeyey maaha been taasi laakiin dee ilaahay wuxuu kuri waa maayna kad awoodid waayo hadda waxa duruuf baa jirta aad hal qol ku wada qabaysid taas ayaa keentay ina aanad guri kale u kareyn karin ama aanad guri kale kugula noolaan karin midba guri kugula noolaan karin oo awoodda yacni ayaa ah inaanad awoodin intaa marka waxa aanad awoodin laa taklif nafsak ilaa wasacaha baa lagu yidhi maxaad naftaada u kalifaysaa baad been naftaada ugu sheegaysaa adigoon kafaaladoodii qaadan karin reerkoodii ka doonan karin adigan sheegayaad leedahay reerkoodii baan idhaahdaa adinku taga oo iga soo kasoo dhameeya hawsha waxaas maxaa la dhahdaa waxaas nin raga maahan haddaad nin raganimo sheeganayso ama ninnimo ama boqolanimo aad sheeganaysid intaad karti ka doonatid ayaad karti ku gursan kartaa saad meel ku meelaysan kartaa oo meel ula fadhiisan kartaa anaga ha noolay manin waxaas adeer imanka social media lagaa maqliyay adeer mar dambe hala soo farsan waxaa meesha 3 dumar ama ku qabaaba hal meel weliba 3 hal sariir baan ku qabaa adeer hana waanin dee waxaas kaa ismici mayne jaarka oradoo dumarka u kala celi niyo nimankoodina way ku arki karaan caadi iska dhigniyo waxaas wax caqliga gelaya maaha wiilkan dhalinyarada ah ayaa ka warbixiyey siday ugu qanacsan yihiin inay wadaagaan hal say iyagoon isku nacayn markii hore filaan ila noqotay waan qaadan waayay laakiin markii dambe xaajigayga waa ka bidin waa Soomaal waa iska yeelay hadda ka hor noloshii alxamdulillah walaa ku faraxsana maadaama aan isfahanay gabdhihii hal meel isugu nimaanay oo wax badan aan isla dhaqanay kale hadda waan ku faraxsanahay nolosha aan ku noolnahay aniga noloshayda waan ku qanacsanahay xaajigayga iyo gabdhahan farxadan kula noolahay sidii farxadda reerkay kula noolaan jiroo kaleeto يعني تاس منها سرعة مو وبهنا يعني وح أنا كو قناعسنا يبقى ما دام حاسك ودن بيسي ويعني أقول سنة يو sida ma ahan oo kaliya inuu ku ekaysto 3 xaas ee uu hadda qabo balse iyagoo garbaha ka fadhiya iyo waxa uu sheegayaa inuu jecel yahay inuu la guursado tii afraad horta weli waxaa waaye boosaan banaan fahant marka dad badan oo soo qabteen waa arkeen igu kajimayaan ma aqaan oo dareenkayga arkeen arono baat dad badan oo soo qabteen waa arkeen dhahayaan fara ii tahay camal lamba qofka afraad aniga waa fahant laakiin walaalo maxaa tiri warbaalka fuq dibigaaleena adeer caawa muraayada waan iska jibinaya iga qabto daaban raadinaya bro dumarkan way xanuunsanayaan ma caafimaad qabaan walow halow malay maqaya caafimaad ma jira gabadha ma caafimaad qabaan caafimaadkoodu sax maaha way anoo ag fadhiyo
taagay tiis afraad baan keenaya noloshaana waan ku noolay adeer haadha riwaayadda inaga daadee adeer ma been ba isku sheegnaa nin soomaali hal xabuu daberi laayi adna 3 baaba tiriba 3 hal guri 3 aad ku qabtid hal guri ma 3 guri kala sameeyay 3 awoodeeda leedahay war anaga niyo waxa aan ugu sheekaynayna oo dumarkan ragoodu u cilban ku leeyahay ama xiriirahoodu u cili haday sa jirto waa dumar aan xaafadoodii farxad ku qabin ama ku soo koray agoon yar rajo meel lagu rugmaday oo lagu qurmay oo lagu baabay ku soo koray xataa ku soo kortay waxa yeesheen oo qaadateen oo noloshoodu adag tahay 3 dumar oo nolol caadi ku soo koray hooyo wanaagsan dhashay aabo wanaagsan dhalay oo halka inta soo fadhiistaan oranaya waan ku qanacsanahay in hal sarin naga dhaxayso ninkii labada dumar oo ninkayguna ka ahaado aan safka u galno waxaas madax xanuun weeyaan adar waxa soo madax xanuun ah nolol manina waxaase hada laga bilaabo madaxaas aniga ay kacsan ma garateen asxaabay balidinku waxaad ka soo leedihiin ka soo dhaha anigu ereygan ama hadalkan hadal iga weyn weeyaan sheekayga weyn weeyaan waa sheeke aanan qaadan karin oo maskaxdeedin yar ay qaadan karin maskaxda yar ay ugu jirtay farqada qaadan karin meesade waxaad ku sheekaynaysaa bro waxaad ku sheekaynaysaa 3 dumar ayaan hal guri ku wada qabaa waliba hal sariir ku wada qabaa waxaasna wax la qaadan karo ma hadda adeer hayna waan waliba mid afraad ban sii hawaysanaya hankaagu weyn aniyo arigaad ilaahay baba ku baneeyay ma xuma laakiin sidee baad ku dareentay ama aad ku keentay in aad 3 dumar ku wada guursatid hal guri oo waliba hal qol aad ku wada seexisid oo aduguna in aad taajir u joogto ayaguna ay silcaanay hal qol wada seexdaan oo waliba hal qol oo ciyaalkina ku sii weheliyaan warnaada caadis ka dhignayo ilaahay ha laga cabsado dumarkan xuquuqdooda meel yaa laga dhicin haday gabadhu ku jilicsan tahay xuquuqdeeda inaan ilaalisaa muhiim bay tahay haday xataa si kasta ku jeceshay xuquuqdeeda ilaalisaa muhiim bay tahay hal guri hadad ku wada guursatid war 5 qol la garay oo 10 qol la garay oo dabaq la garay fiilaa لكن هالقول waliba hal qolo wali fadhigiisa uu leeyahay oo uu xidhay hal qolo yigi ciyaalkii wixiba wallahi runtii waa nolol farihaya ama nolol aad u adag weeyaan clipka duu si dheeraaday gaar leeyahay asxaabtada qaaliga halkaas ku soo gabagabeynaya waa fikirka iyo aragtidayda wixii fikrin iyo aragtidiina bal nugula wadaaga committee-ga ma jeclaan lahayd gabadha afraad ee la raadinayay inaad noqotid oo ka mid noqotid oo waliba guriga halka qol ee sariirta kaliya lagu wada seexanayo inaad ka qayb gashid oo halka kayuga ka gashid ma jeclaan lahayd mise waxa aad fikir kale ayaad ka leedahay fikirka kale aad ka leedahayna nugula wadaag halkan aad baad ugu mahadsantahay clipka dad ku dheeraaday war idin ka raali gelinaya waxaad leeyahay walaashin hodan oo idin leeyahay sida iyo